magaalada New York ayaa ku dhawaaqday Arbacadii 13 July sanada 2017 tallaabo ku kacaysa 32 milyan oo dollarka Mareykanka ah si loo dhimo tirada jiirka ama dooliga ee magaalada 70% xaafadaha Brooklyn, Bronx iyo sidoo kale Manhattan oo ah deegaanada uu dhibaatada ugu badan u geysto jiirka ayaa loo aqoonsan yahay in uu dhibaato xoog leh ku yahay caafimaadka oo yahay gudbiyaha cudurka khatarta ah dabargoyna ku haya aadanaha. xafiiska maayirka magaalada New York ayaa sheegay in magaalada ay la kulantay bilowgii sanadka 2017 in ka badan 10,000 oo cabasho ay dadku ka sheeganayaan waxyeelada jiirka 15% oo aan in ka badan 24,000 oo dhisme oo baaritaan lagu sameeyay xaafadaha aan hore u soo sheegnay ayaa laga helay raadka waxyeelada jiirka. duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa yiri waxaan diidanahay in jiirku uu qayb ka noqdo nolosha caadiga ah ee magaalada. waxa uu sheegay in tallaabadan lagula dagaalamayo jiirka ay bilaaban doonto September soo socota iyadoo ay ka qayb qaadan doonaan qayb ka tirsan amniga oo ay ku jiraan kuwa ka mas'uulka ah gobaha bulaacadaha iyo sidoo kale caafimaadka magaalada. madaxa maamulka fayadhowrka New York Catherine Grazia ayaa dhankeeda sheegtay wadada ugu fiican ee lagula dagaalamo jiirka in ay tahay in cuntada loo diido waxaana taa qayb ka ah in meesha laga saaro qashinka wadooyinka iyo sidoo kale guryaha. magaalada New York ayaa la sheegay in ay ku nool yihiin 2 milyan oo jiir oo nolosha la qaybsaday 8 milyan oo qof oo magaaladaasi ku nool. si kastaba jiirka ayaa ah runtii xayawaan aad khatar badan oo waxyeelo badan u geeya caafimaadka iyo ganacsiga waxaan haboon inaan la qabsan noolaanshihiisa oo aan sidii ugu macquulsan lagula dagaalamo.